gaashaamo iyo siro gudi iyo jigjiga xabashada gadaan baday iyo goobahan dhigay geesigeena oo sharaf jabhadeena oo guul ummadana guyaal badan taariikhda u geliyo ma gaboobi doonta goobtan ku noolahay hadduu ruusku soo galo ama kuuba soo guro geeygeegan sharafta inaan gaar xun uga tago waa gadaana weli arag guurti aana weli maqal ma gabada dadkaygu waa geeri iyo nolol goobtii maanta joogtaa gobonimada yaana loo qaadan sida marageed ka soo baxay dhiigga geesiga gunta lagaga waraabshaa adigu erey noocaas waa muddo badan ka dambeysay in 20 sano marka intaasan ka xasuusanahay waa heese ku jiray oo muxuu ahaa ruwaada xalna jiray inta lagu gafaayo guurka hayda raada tuulooyin badan oo maran ardaydan wadanahay waxaygaas oo wada arday baan noo standard baan oo fasalkan marka ka baxay iskuulkan oo dugsiga dhaxan ka baxay hayba daba xanuunayna adigoo imka waqtiga taaba gashay ee fanaanka noqotay ee dadka qosiiso kulli waxa la yiraahdaa fanaanku waa nin fara badan wax fara badan baa soo mara kulanadiisa fara badan waxaad ka warantaa sheekooyinka kugu cajab badnaa soo mara sheekooyinka cajab badnaa tii ugu dambeysay muxuu ahaa 8 ka markii la qaxay hargeysa markii dhibaato ka dhacday muxuu ahaa dhibaatada si fal war ku dhacay dagaalkaas ka dhacay ayaa qisa iga qabsatay muxuu ahaa ilaa meeshii dadku qaxay harta sheekh iyo ilaa dir laba dhexdooda taas iga cajab baday dadku markii qaxay horta banaan buu socday dadku meel ku jeedana mu garanay dadku reegal buu badnaa marka mid iska day socday inuu taan ku maraya buu ahaa way dadka lagu dhacayaana ilaa hore u qaxay jiray moohay Ethiopian oo talawna leeyahay loo talaabay waan soconay isaga soconay ma tagnay dhulkii dadka lagu qaabilayay maxaa xiriirihii qaxootiga adigu waxba hadda ku dheelay magaalada waan galay markaan magaaladii galay baljijiga gashay meel la yiraahdo xaadow ayaan laba dhaafin ba hatta wax kasta keenta kaarta kasta hadda keenta dhaaf mist aan sheekada ku soo gaabiyay nin muxuu ahaa gaari nin dhakhtar wato oo muxuu ahaa ka yimid baashi herer magaalada herer leeyahay oo leeyri orada meesha soo kormeero dhakhtar wax baxbaariye malakani cali wax noocaas ayaa jigsiga loo soo diray muxuu ahaa meesha wax ka wada dameero wada dhala ninkii darawalkiisa oo ku qaybiyay guri midaan isku yardhownahay uu leeyahay oo ku hagaagay markuu adreeskiisa haysto ayuu baa gurigiisa u tagay أنا كاسن قيادة يا فحوش على وشك كيسني أو دولان وحلا شكيستوا كي أنا وحسوها ما كول ورر محاين وحوس اعتبر ما كاسن كولي ترلبه الكيد مري بيقولوا وضوء أنت ترلبه الله تقول ديري ما لما رأوا مشتري أنا قلت لي ماشي ما قلت لي هو ويانا يابان أيوة بحوش وشاق سمون ترلبه كسعة عنك مركز وشيء أنا قلت لي إنك ماشي وده هلس ويا لما دافع حاجة ما دافعنا مركز برا نيجي اختار كهذا عن كسوي مركز ثاني نكمل اختار بها هاو قاري سوى كدين هرت عجين بيقولوا قال قاري مسوي تي أمبراس كها وحكوكين مركز يقول حكوكي مركز هرب بكين وارد طبعا أربعة ترشون المقولة مركز عبارس كير عمسنا أبي في نوكل ترشون واحد كتير هذا ورن حنون صنايع يقدر وليته ويدك قاعدسان أنا وحيد دونتنا ويدي هل واحد أنا بحياة نحن صنع لك دقة وسمك أقولنا تمن لي توك وعرسان اختار خير أنا يدك نحن سوق قاعدين لا يصوت أما هم أما يدك قاعدين السيريس كيس يدك الاختار باتين كل كاس أرن كمر كي ياوي يقول اختار كي ولا ولا تقول باختار كاس السنة اختار كي يقول تل عجاز واحد أنطانا قاعد يقولي إن اختركي ورونا الامتحان نكاسي سيد دوني أنا قاضي وحولي أنا جيت شيفي سرتها لحق وديني كاسيريس كذا وحكلي الدجاج شيء هذا يقول بيرلي وقتي من بيرلي وكان عقوته ده أما دليته ودي ده رقم ماله كواس هو رقم هو ديان كنتي مثلا ديان هو القوة الرئيون أرنتي سنة يكويناتي دكتور كين شيء ورونا عقل في علم ويرو هادو كركريو سو صار بول سيده لو صاري سيده لو صار هذا واد متشين دي حمام كمان متش انا محل متلي واي افرح لودو وي سارين ناس هراها ايغا مري وردوه بلا سو بخين وخوده وديار غسن هراها ديسنا
تبغى أيضا بين هو هذا ما تقنا أفرت هوشة القلوب يبغى ولا بفرق ولا قادوا نلا بحد الله هو صباحي ولا قادوا ولا جواب بقلي الغالي على الحمام كيف على المشرب ولا قادوا لكن إن لو حد الله نلا بحد الله صباحه مركز سوى مركز واو حال سده حوش مركز كل هذا أنا مكرر معي مركز واو ده نسيرس كيسان كل أردنا أو ما هذا اللي بعتيسان اختار كان هر اختار كان هر بكل أردنا ها وصور يجيب مور ما يسني واحد تعقد بهاش تمفرع الباب كي تنبه وصف والمركز سيجي ترهقرت نوع مسيش مركز الله بحد قلو صف وقك حنصنيا أيها نسي هو تابس حتى كل ما تيجي كتوني وصف ولي مركز عليك مريض يروح شقنا كبد شدة كيفان أي أيام بركضي تدك شارح حنبا متكبد الشيبان ستة واحد حنبا ستة كبد عسوك على كان ملح هل كان ملح عليه بركيو عليه بركية وعض بالله يسارع هبوها الرهي قفل ليان وحين شرين بيف ذا والله يعني هو الشقيل يعني سووا من كان قرمت هولا قرمت يا ماشي كسر أنت كم ركز مرة سايق قاعدة ركز القلعة هرت نروح نقول ساسوي قاعد أنا اللي ما إسكهيا سويقوا علي وعبار صار أنت كسر تجيب وعبار الفكرة في الصعلة عشان يفهم كذا بح ما يموت يعني وأنت والله يعني سوي ميتك والله صعدة واحدة تجي ماشي بابول لي لحظة ويكد تجين عير بيسك قوت تجين والساعة دي بابي مغناي أنا مرة دي سارن وميت كي بنساعة يقول لي ويصور نقطة أنا مركز حواشيت عارفين أنا قلت أنا قوين سدية أي قصر كعين أنا فهمي موذي وحي اللي فلحائي إن الفصحي إن هات بدر الأمان قال لي ممكن أمان قال لي فهمي موذي وأكو قصر حيوانه وعرم بين وأنا كان وليد ذني ليك مراول قلت تو مرا كرع هذا مو مركو لو حد يقول صوف ولا كرع ويا كع وكعيه وأنا هو اللي في وسوي دعاية اللي مرة يسارني أيوة نكى إنجليزي ولا هذا مرة قاعد إنجليزي فاهمين نكى مع الأختر كعب كل كاسوي واحد كوقص محي كوقص ليان ما كل محي كوقص ليان بس واحد كوقص ليان نكى مرة يسكت قاعد ويا أريد ولا ما أنا ما أفكرني يا ما كل مرة تحسب عشان بنيرو نكى جامد كم مرة سوالو دبي وصوت مرتب اللي بعثه تحسب وقت يقول تخيل ما تصلت عبد هيب horta asalkeedaba waxaan aragnaa aduu waxaad adeegsataa afaf badan markaad dadka qoslinayso waxa aad ku hadlaysay dadka ka qosisa maadaa badanaa samaysta mise dadkaa ku sameey lagu samayn karaa horta oo waxba kuma jabna lagu samayn karaa fanaaniinta waa iska shuraako kana erigu kana waa marka dee laakiin wada la wada fadhiyo waxaana qofkaas soo sameeyo laakiin tani way ka duwanta waa karakter gaara ama waa wado gaara qof u gaara marka isagoo tacliin badan ka bixiya oo cid u sharaxa oo kan bara oo ka kale bara oo ka kale qaabkii loo sameeyay mooyaan muddo waa dhaw oo intoo la xurteeyay dabadna isoo wada keenay waxa la sugeliyay laakiin la isleegaysi macnuhu aan isbedeli karin marka saaraan ka soo qaadan often always often waa ingiriisi often way always if dhib la socota otherwise ninka garan way ku yara adkaatay inay ocean kula gelin oo kale if I could not see twice if day actually I'm one ilmeeya marka eri kasta waxa ku loodan ilaa Soomaaliya laakiin way isleegi hadana macnawiyan ma kala duwan ma jabna macnaha way toos oo sheegto waxa kala lamid ah muxuu ahaa saamidi qarrimadu waxay ku noqon diimosh saamidi qarrimadu ay noqon diimosh sabti la labano li xashan taad man la soo qaadkii loo taray dhawaaqay hay ku noqon lacag waa hay ma fahamtay marka macnaheedu waxaan uga jeedaa saamdi qarriman yahay ku noqon qarrimantii waa Soomaaliga saamdi qarriman yahay ku noqon Faransiis dimension waxa weeyaan waa Faransiis hay ku noqon waxa weeyaan Soomaali waana siyaasad hadana macnaheedu bedelo waxaan uga jeedaa sabti waa sabti yuhuud Soomaali axadna waxaad kristaan saamdi qarriman yahay ku noqon diimosh waxay sheegtaan la xisaayo oo jeedadana ma qaldamayso
iyadoo carabiyana aan tusaale ahaan siiyo hay يا حبيبتي أنا أحيي كما تحيي القرود بلا إليس marka ilayskaas ma Soomaaliga halka ugu dambeysay dhahda يا حبيبتي أنا أحيي كما تحيي القرود بلا إليس وقد دار شعري بلا قصيص وهي عزتي قرة عين أنت كمثل اللوح أنت كمدم غير منك حبي وإني أرسلك مليون أوراق وأكثر مرتي مليون معنى مليون ولكنك عامل من أي جواب وقال للمستشفى مالي دواء إلا أديك مويه إلا أديك والحياة تشرب كوى الشاه من البقيس سيدا بقول له قيس بقول له سيدا تقول له قيس مرغب يا حبيبي أنا أحيي كما تحيي القرود بلا إليك كم دررررررن درررررن دررررن وقد على شعري بلا قصيص دررررررن درررررن درررررن ساسا نقول هذا لكن معلش بدلي يا حياتي عنو محاج عيلكي وان نولهاي سيد عيرهدو بلا إليس كمولي أيضا نولهاي أنا ما أقول رامي استقلوا وقد على شعري بلا قصيص تماهي بين القصيص لأن أوجد بس كده حيرون بس كده إرادة ما كان معني اسمه بدليل وهذا معني وقفتي بس معني أنا وصل لكن هذا سيدي كلام دعين تيم بهانا وصح لكن فلا سوق وصيني أدواتك لما كنيسي ما كبرتنا وحين معك عليه ها تذكر العمر معلم وده مثلي سيني واحد تصوحه هي وقف سوماليين أفوف كلي كمجران ها سو هو سومالي سكر الله دقي سكر الله دقي قصة الله دقي أون لمرتين مرتي يقص البكرة سومالي مركب قص سوى قص لوي هذا لكن تهمبري مرتدلة أو اسقيقو أمريو أود مقاري اسقوريه هو مسواريا اسقيقو أمريو أود مقاري اسقوريه هو مسواريا قفول له قفول جاوي له كاودي يكين ده تينك ده تينك حشيش له هذا تين لقوا إنك حشيش كان مقدم كل واحد سقط تمهان هستي جرتي تي جوجر ورجل ها وألم دي أنت تدار بلغا غفير نقو يلا لفانته نكاغن عباي سنيعتيو عذرك في دينا ياهو ونكاغن عباي سنيعتيو عذرك في دينا ياهو دبشير الده كاتا إيا ديف له تولي دواق له الله شعيل كاميو إياغا الله ولا شعيل كاميو إياغا نكير مقعلها مموس كردية مران كم محيي كفارسة ورنكير مقعلها مموس كردية مران كم محيي كفارسة على المدوي له عوجت إيا اللوح له عنصر لفتيد الله جعل كأميو يق الله نوي جعل كأميو بعد ما بتركي سرادي بعد ما بتركينا والله هذا استدعى أصلا عيال سوق العاسي يتوب لي بدو معروف له الله جعل كأميو قاموس الله حق كرنيا هذا مش كرنيا الله حق كرنيا ماله مركا كسوة الصومالي جيني oo isagoo hadana qosol ah aan murtina ka maqnayn laakiin hadana waa qosol waa qosol qosolku waxa weyn wasadan soo ismarsmala waa murtida ismarskeeyo roodidii murtida noqonaysa waxa yar dhexda laga maray macaanini waa tan macaanis marka tan lagu daro dadka rood murtida tan lagu daro waa bas ismarska u leeyahay roodin ku damaysan matashay adiga iyo دي كان فنان كها بونحس ما كم ده قصو كيدي تانو كلا كجرت وانا اي برتان استاغي كبحسانيسا برتان استاغي كبحسانيسا شاهن بيغي اي كبودي ولا marka شاهن بيغي يبودي ما يران أو قوة ما كليان كلا تشاء ما حبلها وذنعا سيدا زهيد أيه تكتي فأسأل قصر برنامج روايد ها هيستاير قصر ودي فربنينو تيجي بساسو تهلك مقصو توكي مرة تقدر ري يلو hindi ku jiro ayaguna maxaa
ayaa ku jirtay laakiin kumanaan darin ay halkan ay kuma idan daray laakiin baan noo sheegi karaysaa inkastaad riwaayadda ku daray timihii basaaso taalog ma goosto tunkaygii gamuura wuu taagdareeye way haddaan ku caashaqay eseedii ciishay caadilka arkaayo iga caawintoone mirigii aaway miri awaawa asa burana ajaahe waa hindigii ha hindigii ha inta waxaan ka qosinaysa waa inta leega kale hoosta lagaga nabay ha been macnawiin ha inta xoojinaysa caqliga haweenkuna waa sida cayaalko rag ninkii u cawdanaa way cadaadiyaane way haddaan ku caashaqay eseedii ciishay caadilka arkaayo iga caawintoone marsoo cawe caawa qura hay cidlayn caawa keliya horta waxa ay dambeeyaan habeen damban oo albumay joogtaa waxoogaa haddaba ka nasanno cabdi haybe axmed waan ku salaami doonaa marsharafka koobaad ee barnaamijka imika waxaan hadalka jecelahay in aan siiyo odayga maxamuud cabdilaahi ciise sangu horta maxamed iyo cabdi iyo hiilaashintaba iyo marti sharafta ama tixmaalka ag fadhiya kolley wax kastaba waxay ku fiican yihiin haddii ardadaadu ay kacdo oy wixiiba qabtaan hawshii anigu waxaaban ku fiicnaan lahaa inaan qoslo oo ardadaydan ku qoslo matalan waxa cajiib hadda dhabbe wado hilin waa ninkii nala fadhiya waxyaalaha cilmiga ehli gaari maaragtay awel weyn istiri jiray waan ka xanaaqi jirin maanu hilin igu leeyahay bug ba soomaalidu say wel baxays waxaa arkaysa hadda mid baa la odhan jiray baabuurka mahooyadaa baale waa su-aal wuxuu odhanaya wuu leeyahay iyo maraho feer buu ku kicin jiray hadda dhabbe hilin wado ya waa iska wax caadiya wey bini aadmiga dee fal lama noqon karo haddaan wax dadka lagaga duwanayn haddaad un dee qurxis iyo bildaan arag sami iyo aada la baxdo dadka waxba kama duwanay marka magacyadaas iyo markii aan kaa waxaan jeclaa inaan iska farxa horta caro iga dambeeyo oo tixmaalka hadda da-da lama sheega haddaan aw iga wen yahay saako dhan baan isaasan caro bal hadda intaad iga weyntahay ka sheeg ilaahay ana gaarsiiya laakiin kolla waa wada dhalanay hadda iska jir dabada kaga dar anuu 66 baan jiraa laakiin mar baynu wada dhalanay ayuu ku lahay armaad iga horeysa adigu caari aan kugu soo wareejiye marka maadaama ay dhalinyartu qosolka inoo yihiin anna aan dhowr eray oo falaga ah aan inoo tiriyo inay dunidu gabangaabsi tahay gabaxo hoolita waktigaas kuraaye inaa shiidii lagu guuray oo ay galgala tahay ayaan idin garwaaqsiinay taariikhahan gabaabsiiyey qarnigan galowgu sheegaya gudcurka iyo cadceedan isqabsaday hadalkan gaagaaban cilmi falagan guuray ee dayaxa guudka laga saaray gordane iyo suuradan kala durkee godobta sheegaya guntane iyo bayaadkan isdhacay ee geela kala qaaday gartan waafyuubkii lahaa geli aqoon waaye ximrahan guunta soofaystay ee gamaska dhigaystay lamaanahan guxleeye u tegey dirirka gawriire gaaraanahan ordaaya ee derderay guubiska hurdaaya minguriyahan dhuntay ee wakhtigooda garaacayo garbaraarka ciilka u go-ay ee gudubka daweystay ee kiiskaa qabaday ee habeenka u galeen litaa cuqlaha gebiga yuurura ee ilmadu dhabanka ay gaadhay dariiqaa gedmaday ee tirada geesu bixi waayey gugulahan dhawaaqay ee codkiisii la garan waayey geeldoojiyaasha iyo siradan diday godadkooda sirtan ugalkeedin lumay ee gacantu ay hayso geedigan ujeedada leh ee raadka loo gadayo ka gaadhsiinaya weerarka iyo guura bahallayntan gantaalaha ninkii ridi lahaa amarka loo geeyey uladan goor walbaba wada shirteen fulin go-aankeedu dowladahan gobta ah een haddana fito weli gaadhi intaan baan uga jeeda
waayo qofka leeyahay waxaa laleeyahay xor baa tahay mana hadli kartid maxaa laga erayoo kala fog markii aan ku wareejiyo waxaan uga hadda waan kusoo noqonaynaa mahadsanid waxaan kusoo noqonaynaa cabdi haybe cabdi haybe riwaayad aad matashod kuwii ugu horreeyey waxaa ka mid ah riwaayaddii aad tiri dayri geeda ma saartee gubaad oo xabiyeeya waa 79 ahayd waxa weyn waa riwaayadahan ku bartay nin la oran jiray sangu baa garanaya dee la isaga macallimiinteeda awal gar jaamac baa la oran jiray marka allah naxariistay steestiinkiiba hargeysa ku marxuum ku geeriyooday abwaan buu ahaa jilaano uu ahaa waa ninkii matali jiray kurka booseeya miyaad kululaatay kawarkay soo saarso ma oran jirin muxuu ahaa ninkii loo sareeyay axmed aziz sareeyay waa ninkii uu la matali jiray oo ku oran jiray kurka booseeya miyaad kululaatay kawarkay soo saar ninkii ku oran jiray awal gar jaamac marka ninkaas riwaayad lahaa awal waxa la oran jiray deergeeda masarta gubad xabiyeeya dad badan baa ugu jiray Allah naxariisan inta ugu jiray 8 ka dhigtay xuur la oran jiray waxa ku jiray maxamed faarax la isna hargeysa joogo waxa garanaya waa sangu ba garanaya waxa ku jiray Sahra Cali Xasan ay ku jirtay marka actor labaad baan lagu ha Sahra Cali Xasan way matay jirnay waxa kamid ahaa aan ka xusuustaa imika hees kamid ahayd oo hal hees baan ka xusuustaa iyo hal geeraar baan mulanaya waxa ku saabsan xaaladii waqtiga lagu jiray maybe waxa kale ku saabsan waxa ku saabsan waxa iska caadi hor dhamaan jacayl caadi ah iyo cabashooyin wax noocaas oo magaalada dawal kala caawinayo marka waxa kamid ah hees hal hees oo dheera oo la oran jiray todobta ay tusroobiyo raxmadii alloo timi dhulka taakiyo taantaan la loo degay oo tigaatu hawrto taabutahay calantii sida loogu taransado xooluhu tayaystaa tafku caana lay noqo iyo taran barwa aqale taban taabi reerko tafaha aw xaydo hoy yan laga tegin iska tiiri qayrka ayaa kamid ahay oo inta xusuustay geerarkii mid ka xusuustay waxa kamid asna waxaan haystay hodheel marka riwaayadda kuma tiris hodheel baasta hodheel baan waxaan tabakh kulkaas dadii ma leeyahay maxaa haysa loo oranaya marka tan waxaan hayaa beer iyo beed barigii lagu shiilay iyo baytaa u karmiici badow aan aad u aqoon badow aan aad u aqoon dadku ka baqtiyo cisba gaadhay bakeeri salaadii ku butaxshay isla bushiyo waxoodo yarbo dhanaa ayaan haya waxaan hayaa bursaliid la balaarsho inaan barqadaan baheerkay barwaaqada san kana mid ku balashaa ayaa gararkaas ka sii hayay imka intaa wada way horeysay oo way fogaatay riwaayadaha kala duwansho waxa kamid ah duruuf xeerka ka weyn horta tan ma kan sameeyay duruufta xeerka weyn waa mid cusub iyado waa waxa ku saabsan tahay badana horta waa falsafad laakiin fanka ku saabsan duruufta ka weyn baa tiri xeerka uu jabaya hadii duruuf timaado xeer kastoo jira wuu burburaya duruuf hadii timaado xeer kasta wuu burburaya wuu burburaya duruuftana jabinaysa hadii uu gurur dhaco hadii lagu soo muu jabin xeer kasta ma jabin magawaadid marka tagaysa iyo maxaa la jiray hadii fool timaado wada qarsiin hadda ba leeyay marka hadii duruuf timaado xeer wuu jabay xeer wax kastoo laga looniyo xas waa xeer taa jabaya duruufta wata duruuftu ma ku hogaaminaysa marka waxaad tidhaahdeen waxay leedahay ilaa 12 magac bay leedahay maxaa kamid ah fanka ku saabsan karta riwaayado oo ku hal qabsaday laakiin waxyaalo fara badan baa ku jira oo falsafada waxa kamid ah fankan beelaha gaadhay burburku la socday ha fanku waa isagii foolxumaanu gee fankeenu gudbu ahaa gulmiyada doornsiiyay fankii fatalada cadaa fulaha waqtiga ka dhigay fanku maaha sidaase maad su-aashi dadkiisa
كله فنكم maaha saas ma su'aasha dadkiisa fanku maaha xantoobsi iyo xabaal goosarataada ayayna ku jirtaa xabaasha koosarada xabaasha talo waa ninkii soo gaaray oo gaaray fanka in xoreyna ama in xabaalo ayayna ku jirtaa waxa kamida fanku wadaha jeeriye hama beerenda mid walba wax weeyaan waxay soconaysaa 20 daqiiqo magacaas 20 daqiiqo soconaya marka isku 3 saacadood lama rawaad magaca kali horta rawaada dee isma gudigi karo waa dheer macnaheedu nin baa cid walba u tagaya ya wali walba wax weydiinaya nin walba wax weydiinaya cid walba wada maraya ninka inta la sheekeysanayo ayuu magacaas yahay oo ninkaas magacaas ninka halka taagan ninka uu tagay ayaa magacaay walaalayihiin oo magacaasita halkaas magacaas ku dhamaado uu ka dhaqaaqay soo yaaban oo madaxa haysto uu ka dhaqaaqo hadana culimka wax galo wixii magaca kale soo booday geeraaradeedu waxba ka haysana heesaheedii dhowr heesood ba ku jiro tusaale yaro mid waxa weeyaan tusmada aad leedahay dhulkaaga lagu tarmaa tusmada aad leedahay dhulkaaga lagu tarmaa adoo tii awoowe iyo taariikhdaada iyo xusuus ku tilmaamaya horena loo talaabsadaa waxay sheekadu ku timi ugutuun laguma lumo tab baa lagu xoogsadaa tala ummad lagu dhaqaa tawfiiq baa lagu hodmaa ninkii taa diidayay tareenka holaan socday taylan u hawaayo cidla talaago waxay sheekadu ku timi qurumaha ku tashay talaabada dheer ku yimid waxay kugu taagaleen si aan taadna u fulin diinteena u taabagelnay lagu taamaya tacliintu faasuq wado tawxiidka ilaahay iyo qalbiga tukada ka weyn waxaan taa uga socda tagtada sheekada ka reeb tagtada sheekada ka reeb timaadana ay ku dagin ta joogtana hoos u dhigo saddexda yaan uga socdayba muxuu taasi way ku jirtaa waxa kale ku jirta mid aan dheer garad oo dheer garad waxa la yiraahdo ka sheekeynayso qofku in dheer gartay in dheer maxay u gartay su'aal isweydiin karto ya way ku imanayaan oo hebel waan dheer garad hal hal mid qoon ama way oo ya khatar way waan dheer dama inta way aan garto dadka aan garto way ku diideen waa in la garto qofka inta dheer u gartay wuxuu yahay aqoonta iyo waxa isku jirta xumaanay sabaan aqoontu waa laba liid waa mid xun iyo mid san sidii loo dibin lahaa waa aqoon oo deeyaba aqoonte wax sidii la isaga difaaci lahaa waa aqoon wax sidii loo deyn lahaana waa aqoon wax sidii loo wanaajin lahaa waa aqoon wax sidii loo xumeyn lahaa waa aqoon wanigan tuun darbad ku yahay deeyaa mana garanayaan deegaho maxaa geeraa kaga mid marka indheergaradka markaas muxuu saddex baan kala qaaday indheergarad utingarad indheergarad aqoon garad iyo indheergarad akhri garad saddexdaa qaybood buu qaybsamay indheergaradka marka indheergarad waxaan muhiimkii markaa qaatay indheergarad akhri garad indheergarad muxuu utingarad waa indheergarad xumaan garad utintu aqoonta oo inta xun laga qaatay bal aqoonta oo liidka xun laga qaatay waa lagu baabiyo dee waa wax la iska difaaca si hebel loo khiyaamay sida waxdaas weeyaan moogtay si hebel loo xidhay gargaradu laakiin waa si hebel loo xanibay sida ya loo khiyaamay marka intii wuxuu ka qaato intii waa indhergarad khatara kana intii wanaagsan uu ka qaato waa indhergarad aakhira garad waa laba dal leh waa dalka adduunka iyo dalka aakhira waa laba dal leh maxaa soo dhaxeeya indhergarad aqoon garad oo isugu jira xumaantii iyo sawaantiiba waa aqoonta lafteedii aqoontana waxa uu doonato ma ku siinaysa dad xumaan doonatana ku siin haddaad wanaag doonatana ku siin marka ninkaas u dhaxeeya marka aqoonta kulba kay u heeliso ay guulaysaday hor haye marka indheergarad aakhira garad ayaa kabtankii kooxda noqday haye oo manada isku fuqsaday leedela wala badal aakhirna kaga badmaysid adduunka jooga marka hees ka ku saabsan marka jira soo dilay shakada ila soo gelisay moogtahay indheer arag gaba dhamaan aakhira garad baa ugu mudan anfacadii aad cuntana midii aan eed lahayn af iyo muruq wada jira adduun lagu garab galaa ujeedo hagaagsan baa ammaan lagu haybsadaa ammaan hawa baryin ujeedo hagaagsan keento iska imanaysa waxa iyada imanaysa ujeedo hagaagsan baa ammaan lagu haybsadaa qof xuma oo u jira hadhow eersada ugu hadal kaba dhamaan asluub ku dar baa ugu mudan asluub ku dar
ugu mudan ereygii aad dhahdaan midan aafooyin kicin iskuul edeb iyo tacliin aayaha ubadka dhistaa cid kale waxba uma tarto iskuulka iyo edebta iyo tacliintu saddexdaas waxay u tartaan carruurta markay yararta ha laakiin dadka waa waxba uma tarto de lama edbin karo qofka hadduu weynaado la bari karaa waa saxiisi bacana boole noqotee markuu weynaadana dee lama bari kara wax dee yar adkaanaysa carruurta iyo weynaado iskuul edeb iyo tacliin aayaha ubadka dhistaa arrimo laga fiirsadaa run bay edega u jira ismaqal iyo urursanaan arraa lagu horumarshaa awood darri erey xun baa umadidulu kaga hadhaa ilaahay baa awood leh xaq iyo miisaan ugu حق يمين taasina waa mid maxaa kale waxa koogu jira qaar nabaddaa ku jira haye qaar nabadda way ku jiraan ila waa 12 magac meesha iyo magac qaar nabadda ku jira mid meel kasta haysta yarda haysta ku jirta oo laakiin ma dhaadheera mid walba waxaad moodaa in wax yar oo mid soo riid qaar nabadda ku jira oo ka mid yihiin muxuu ahaa hees la yiraahdo muxuu ahaa مخلوق نبات لي معانا ايه مخلوق نبات لي معانا ايه مسكين فقر يا مليونير كل مولها لبض وسمان من إله اللي جمع حجارته مسكين فقر يا مليونير كبا مولها لبض وسمان محب كي كلش على مصدر لما سيهر له ملقيه شرف روح كام من نعمها الله سكمره تدمر شيء هو من ملك وملك يا متشرو adiga la faanta tadmarashiin hoog min maleego meel jiro munaafiqi ummatan dhaba maxsharka la hordhiga maciin aan kala maarmi karin malcuun isku diray mar rabo macaanayay macaana makhluuq nabad helay macaana markaas ay leeyihiin in kastoo macaanta maskaxda garataa ka mudan dadkii u jawaabay waxay leeyihiin labadii macaanta maskaxda garataa ka mudan ma haysaa iyadoo iiga nasiib oo bartaa ma hayade markaas oo ma hayo uu is dhaqaaqayo kan ninkii waa ninkii de uu dhaqaaqaya oo de ma hayo hadaba tii hadana seen iska dhaqaaq weelay iska xadina si ma haysa si garis waa runtaa bay leeyahay hadayna garan weyda ya ka darana ay maanta wala wada taasa kamida ta kalena waxa dawlad qiimo badan oo qurux iyo wanaag loo qalbiga iyo bariguba qaada dhigaano qurumahan lagu daro in qarna hatan qalbiga ka jeceshiin haye shaqada talqiyaabka aadmiga qorshihii wax qabadkana qaabkay ku noqon lagu wax qaniisan baa jira qurun meel ku jira oo dadku soo qotaa jira qabiil iyo wax baa jira qayraada sheekada marka la isku qoodhimo qof nacab hal wiili mawsada ka qaato ku shuucaya jira wiil qiimo badan oo qabanaya hawlaha midaan qiimo wanaag u qalandaariya jira isagoo wax qaban mid qasaare geysto qiil doona baa jira qab dhaafa baa jira midaan qoorin baa jira qof furaha diido dhaqas baa jira waxaan usoo noqon doonaa haddaba cabdi haybe marka maasooyinkii uu noo geli doonaa in sacaaraan doona in hadalka sii waxa weeye horta gabayga barnaamijka taxmaal ee gabaya gabayaasha horta way wanaagsan yihiin raggiina maaragtay cilmiga ururinayina rag maskaxdii baahsanaan lahayd soo urshada ila tahay waad mahadsantihiin inagiyo dadweynuhuba anigu waan dee inala socday waan inala fadhihi jiray laakiin gabaygani anigu aan hayo dee wuxuu ahaa gabay anu aan qarinayo dee cishaan weydiiyey riiraash waa horta gabayaaga wuu maarata wuu fiican yahay gabaygu gabayga la yidhaaho siire awliyo ama gabi suufi meesha hadduu galo bal ka waran waa dhaqankeenu maada tiriye aare anaa ku weydiiye hay maada tiriye gabayga dalaga anaa tiri dalaga anaa tiri haye waxa uu yidhi waa dhaqankeena kolkaa ninkii aad baan u eegoo waridan awliyada lagama tegin baa in weli aan ka jeesan baa jirtaan taagana gabayga anagu ururinta la soo jeedaa haye gabayga waxaan tiriyey sanadka aan tiriyey taariikhda sidaad ku garaysid cabdirashiid waagii haddii laga hela la diyey bay ahayd sagaaliyo lixdankii ha kolkaa anigu xagga nayriska maaragtay haddii laga helo ayaan ku aqaanaa nayriska isniin buu ahaa waagaa waan guursaday aqalkaygu aroos buu ahaa waxaan haystay raadiyo sidaan yani noogu sheegayo ku garanayo in la dilay soomaali ma tegin ama ma joogin kolkaa sidii warku igu soo galay raadiyo oo hor yaallay uun baan maqlay cabdirashiid baa la dilay halka danaygada soomaalidaan dhegaysanay kolkaa sidaa baan imanka cabdirashiid waagii la dilay aan noogu sheegayaan waaga gabi jiray laakiin in baaba ka horeysay kolkaaba kolkaa
ninkeer imika kolkuu sheekaynayey waxa dee jira wax ilaahayna og yahay oo dee dadku haddaanagu ogey gabaygaa waan qarinayay kolkaan sheegaya een gabyayo milaan cidlo jooga ahay isniin waan qarinayay salaasana waan ku hadlay salaasa waa meliga xaylo salaasa la qaban doono waxaan ugu hadlay wixii aan kolkaan wax arkayna kolkaan hurdo yahay waxaan ka xishoon jiray dadka soo jeedaaba ru sheegi waan hurday haddaad tiradoo lagu wabilo wax jin baa u sheekeeye mabiduu leeyahay bilo dadkaranta bubla la yidhaahba ahayd haddaa laga caanaha wuxuu yaalla reerku malkaajabta soo dacalkeeda meesha la yidhaaho gol adag iyaa naallay oo buuruhuna way soo gaarteen tigaadda caanuhu waxay ahaayeen geela 6 leero daasadii kuwa lo-dana nusa shilin sokorta 14 leero subaga kiilooda saafigii 2 qarshe boqolka kiilooda haruura muqrihi 18 shilin jaadka gaagaabka maaragtay 4 leero barwaaqo dhulku waxa jira guur saafiya waxa jira caano saafiya waxa jira gacal saafiya hadal saafiya jiro dadku waa nimca ilaahay dadka nimcadaa jooga waxaan arkay haddaan ugu sheegay ma aqbalay waxaan maqlay inuu ogaas xasan baa yidhi allah janneeye 6 marmeel dhiga haddii aan laga helo xaafad ciise dhiga caano dhowrta ka buuxiyeen kolkaabaan idhi waaryaahay warada boqorku marba waxaan arkayso inuu arkayna u tagtaayo ee aabba waxaabaan arkaane oo kolkaan huddo arka ama tidhaha kolkaabaan haddana maqlay bise waa hore sheekh muuse uu sheegay oo sheekh muuse xer diro ogaaska u tagay yidhi iyo kolka u tagtay anina awliyaanahay nimanka awliyada ku qaybsan u tagay yidhi kolkaa rabbi uu sheegaya cawad iyo haddii la sheekh maxamed jaamac iyo sheekh axmed giriya bay ahay waa raggii da u tagayaa yidhi nima noole iyaan idhoo waan ka gabaday dhowrtadii waa la shubay oo dumarkii haddii caana diqiyey baa shuba caanaha layidhaha islaan qadaado ku shubta tu daasad ku shubta tu in yaroo masa ku shubta awli allaa loo bixinayo 2 marmiil baa la buuxinayay dharaartii waliba masaakiinta un baa la siiyaa waxaan tegay magaaladii dirdhabo sheekh aadan raamaale xaajigii sheekhi haddaa dirdhabo fadhihi jiray oo xertiisii oo dee xer cawlan dad masaakiin oo waalwaalano eegoo sidaa u fadhido oo mid waa 2 kiilo fooxa dabka uu ku guray lilmo sidiisi oo ceeshihii ila dul joogay war waxa waalwaalal maxaa helay uu leeyahay uu baa dul joogsaday wallaahi tani waa wax jira uun baan idhi haddii tooli waa wax lagula ogyahay awliyaada habeenkii kolkaan seexday uun baa la akhriyay gabay badan waxaan dee kuu sheegayaa gabaygaa wuxuu yahay muddi awliyaa joogi iyo gaadh hayo oo idila nimankii garoomada lahay guuxa waayadani samadaana guux baa jiray cidiba gaadhayn meel walba golowiskii ka dhacay odagii loo geeyey gudtaa laga bilaaboo xaqi idhanka soo gaadhi gorofkii hadduu buuxsadoo loo garwaxsadee gallad mahad hadday sadadii goyse xaajadii aqisnaya qawsoo madad yaa jilaani samadiiyo waxaan eegayaa sawdan baaqanin wuxuu eebba ii soo sidoo sugaya weeyaane siligaay kolkuu ila hadlaan saari geeyaan sawdkaan idhaahayna waa siire awliye gallin buu malooligu sardamee saaka waxa jooga haddee seefta loo qaadayo waa la kala saydhin subalku ilaahay dhashoo saafia u kici aqisnaya qawso kolkaa wuxuu yidhi waxaan sheega waa la arkiyo meehi shaydaani shuqul awliyu aabbahay shuunka ka ahaay sharciyada la dhaawacay hadday shaaca ka caddaan shuqulkii asxaabtii iyo haddaan sharaftii loo laamin awliyada sharaf badan haddii loo shadixi waayo adduunkana isku shaamaan haddaan la kala shaandhayn nin waliba haddaan shoog la odhi shaygu ka abuurmay nin xariir ku shaamahan hadduu shiis odhan waayo shayaadiinahoo idin haddaan laysku wada shiilin sheekhaan ku dhaartay hadday shaaca ka caddaan waxba hadalka lama shaamiyo sheekha ma u dhiibay buu yidhi aqisnaya qawso wuxuu yidhi haddii sharciyada la dhaawaci hadday shaaca ka caddaan soomahay gabay wuxuu yidhi ay shacaninkii joogay odayadii oo dhan hadha gaalo awliye taal odagii weynaadhe mille iyo burcada waaruf boqoradii yaal kuwii hibada loo dhiibay harawo oo laayay awliyadii herergey iyo odagii weynaadhe eglan iyo oroobna ha jira ummadii soomaali arrimihii kolkay iskugu tegeen laysaf garan waadhe nin indhala nin iibaan labaa uuba loo qodaydhe alla la gabadh dhuntay dad baa la eryanayaa bui aqisnaaya qaws haddaba hoosoo noqonayna masharafka koowaad ee barnaamijka mahadsanid car
cabdi haybe maasooyin miyaad tirisaa masooyin dee kulley muxuu ahaa kulley dee qofku haa kuwan gaagaaban maahan laakiin kuwan gaagaaban macna kuwan hees baa la yidhaha macna gabay baad ujeeda xagga dheer haa inkastoo dee kulley laga gab badan yahay oo dee abwaanidii waaweyn fadhiyaan haddana laakiin dee waan isku dayi karaa macallimiintii waan isku dayey waan laba goor waan isku dayey midba ujeedadu doona ha lahaadee laakiin kulley qosol baa erayadeeda waxaad u tirisaa sidii mid jacaya sida kale waan u tirin karaa ee qosolka sida kalena waa loo tiriya waa labada waan u tirin karaa mid jacayla horta waan tiriyo dee dadkuba inta badan maqleen oo tidhi oon idhe sida hogolka ishii da'do mericda waxay hayso ama lebiga hawdoo gugii ubaxu heriyey oo haad ku dhaafoo shimbiri inaga goor heestay aadmiguma horay dhaqsi ugu hiloobaay ninbatuu ka helo ayuu hablaha hodan ku sheegaya ana xiisahan ku haya kabahan weyn taasi naasahaaga sida hooto waran hore u soo taagan dabinahaagan hiifka baaqon hadalsan mooyaane ilka aan hogoodii kalama kalama hooseynin dhabanada hareeraha wejiga halaadha nuuraya sankaagan hanaankii qorshaha hadiyad loo siiyey indhahana qasoo taago haddana caasha qabanaya sunayaasha haabkooda wacan hadal dhammayn waaye timo garabka hoosuga degoo sinaha habaabtay qoortan iyo habkii gelilaha hala wax dhaafsisan dhexdanaan hareeraha u kicin hore u soo boormin abu socodka laafiha gacmaha heega lagu dheehay hanaan quruxsan waa kuwa lagu ka qabeereene waa gabay markii aan hamiye aan higad qoraye waa gabay ninkii la hordhigaa oo hin horsade eh waa gabay ninkaan caashiqilin hawryaalan la ah ninkaan shaqo hawryaalan leeyahay waa gabay marka kaas mid kalena ugu fara badan yahay oo dee markaan kusoo laakiin tusaalaad ka siinaya laakiin tusaaleyska tusaale xogaya saree xoogan ayay xoojinaysa wuxuu noqonayaa sida good lacagyo xumada geesaba u saydhay ama aarga muun lagu dhuftay oo adhaxda soo geejay ama gool ilmi laga xado goo hadamin weyday ama baarqab geel jire diloo caraga muyeysan meel laysku galay oo safayn qayladii isgaadhay gurmad geesi lagu dhaawaco gumicii naafiyey harka geedka kuwii geen lahaa laga gol roonaaday ama habar goblan oo xanuun gool cidlaa taala oon cida garabsatii aan lahayn gacal xanaaneeya kadib jiifkayga xada hordada gama laydiidii waxay gubayeen mooy ka kacay guga shiitiin kifafkii adduunyada ayaan baryahan guriga raasii wax ugu daray mooye dhirta gubatay eeraan naflaha geesiyada leeday dhirtii gubatay eeraan naflaha geesiyada leeday guutooyin baaba'ay ciraaq hadimadii gaadhay bayruud godobkii ka dhacay gaariya islaamka gariiliyada si lagu gaayay labada geesoode gebgebyeynta ruushkii kabuul goradda soo saaray shax gumaysi midabka gorkii midabku soo geertay gaantaalaha ridada dhexe madfaca laysla gaadaayo gardarooyin ka muuqday in laga garaabaynin afarta gudi aan lahaa gudama sii daayay ma gadaamay sida guri aroos gogolig mau yeelay madaafiic garatiya xabada gumucuma qiraashay haa horta halkaa inoo joogo wax ka muxuu ahaayeen munaasabad ahaan ayaa meelo kale uga gelaya oo fara badan laakiin waxaad ku dartay soo maraya waa ku dartay leeday dadka degmada badiyaa ma yaqaanin leeday waa leeday waa dhintay waa dhimashada leeasho wixii odaygii oo fadhiye maxasan gubayn marka degmooyinka qaar baa dhimasho un baa loo yaqaana waa dhimasho leecasho waxa weyn laakiin marka leecasho la yidhaahdo dad fara badan ma la sheegaya dad leecasho maqasho ni qof maaha waa lagu leecda hadii lagu yidhahdo ama leecashaba dad fara badan ayaa dhib jamac wey erig waa jamac keli maaha isagu waxuu ku daray magaca macnihiisa dadku aad bay ugu baahan yihiin qosolka maaragtay iyo kelmadahan isu imanaya ee haddana iswada leeya midaba meel ka soo aroortay yaa horta ku talin lahaa tala ahaan oo bini-aadmigu had iyo goor farax buu u baahan yahay ha marka cabdi waxaad yar moodaa inuu ereyadiisu farax ka ay ka soo jeedaan ama sida uu u tilmaamayey weli maan aragna riwaayad samaynay riwaayad 12 magac leh kuma aanan fikirin waan u hambaliyeynayaa aad baan ugu hambalyeynaya waxaan u malayn dalka soomaaliya ninka ugu rawaada badnaa baan ahay haddana cabdi ereygaa uu magacyada baynu bixiyey riwaayadda hal magac u bixi maahe 12 magac u bixi maba aana odhanin waa waxa adduunyada يعني أنا هاد يقول كل دردان فنكنا والفنك معها واحد ميل سكتش وقف وترتن سيدك بدأ كل بقف وقال لي يقولك
ayaa ninkii sanadka hees fiican ku heesa ayaa wankii wata oo kow ah qofka si fiican wuxu matala ayaa kow ah karwaad fiican fiiya ayaa hadba fanku waxa weeye ma aha in la yidhaahdo sangubow halkaasaad joogtaa ma aha afguriga ayaa samaynaya ereyadaydii kuwa ka fiican waa inuu noqdo hal abuurku waa inuu noqdo mid xora tartanna ku jiro waayo had iyo goor hadduu noqdo sangubow adun baa meeshaa jooga waxaad moodaa in markaas fikraddii bini-aadmiga in wax loo dhibayo oo la xidhay baad mooda waxaan aada ugu faraxsanahay intaasoo maanta martiqaad keliya maa waa wada hal abuuradii way jirtaa tixgelin la yidhaha qofka tixgelin la siiyo laakiin waa in hal abuurkeennu madax banaanada anigu sidaan qabo oo aan loo arag hebel ba halkaa joogay sangubbaa intaasoo riwaayad sameeyey sangubbaa kana ma aha maskaxdu way gaabisaa garashadu way gaabisaa indhuhu way gaabiyaan hal abuurku wuu gaabtaa yani qofku wax badan buu aan u socday kor marka hadda hoos baan u socdaa waa inay dhalinyartan iyo daba marto oo la xoreeyo si uu qofkii u ididisho wey waxaan u hambalyeynayaa intaas oo dhalinyaro ahoo wada hal abuura haddana tixgelin martiqaad ma aha ee waad soo xusheen waa dadkii gabyayey ee heesayey ficnaa wey waxaan ana ugu hambalyeynayaa inaan idin xorayno oo uu noqdo ereyga soomaaliyeed inuu noqdo god aan la taataabanin oo iska madax banaan inuu noqdo maxaan hadda mahmaahda u daba soconnaa waa wax rag dhigay waan ka maarmi laanahay waayo anu mahmaah ma samayn karo haddaan sameeyana ma hirgelayso marka waxa weeye in wixii la madax banaaneeyo oo sidan aada noogu yeedheen wariyayaasha noogu yeedheen horta ninka wariyaha la yidhaha waa multiqal baa la yidhahdaa wuxuu qalaa wuu ka sii wen yahay hal abuura waxaa ka weyn wariyaha ayaa ka weyn hal abuura waayo wuxuu qalaa wixii la sameeyey haddaba arta markay dad su-aalayaan ama qof wax ka qaadayaan intay jiiraan la marayaan ay xigmadda la marayaan anugu lama mari karo marka hambaliyey wanaagsan nasiib baan u yeelanay in dhalinyarana fahmaysa ay qaybahan qaabilsan yihiin ay maanta naga qaadayaan marka aan in badan baan daba joognay aan marka waxaan aada u aqaanaa qur-aanka anigu dadku qaar baa yidhaha sinba hadduu wax qori lahaa way odhanayaan hadda wax qorin gaalada un maahe annagu waxaanu qornaa dee diinteenii qiimaha badnayd marka aan xadiiskii rasuulka iyo iyo ilaahay siduu u khalqo bini-aadmiga aan idhaahdo kolkii axadee bahay inuu ulmo uu damcado wuxuu u unkaa samays dhigaa orka lagu maqliyo dareen uriyaha sankiiyo afkeenniyo koodadkiiyo indhaha iyo daamankiiyo saableyd iyo uurka iyo labada adin iyo gacmaha astaan dhadig iyo labood intaasoo suuraysan baa ilaahay nafta uu gashaa caruurtana oohintaa rabbiga uga dhiga afkarab oy ogaataa hooyadii inuu intifaacsi rabo ee soomaaliha iyo heladaa markaada shahaadataa rabbigay uu ka dhigay islaam shanteenna arkaanta iyo lixdeenna iimaanka iyo maxay aayaduhu dhaheen ilaahay uuna faray xadiisyadu aamineen rasuulkeennuna akiday aqoon waad leedahay intaa maad ku camal fashaan berigii asxaabihii udgoonay nebiga iyaga kuwii inkiree kufriyey qoonkii abujahal lahaa kolkay in la dila xugmeen adeeradii lagaga baqay ibliiskii yimid shirkii ardaaba shan wiil ka madha iday ilmaadu wada dishaan kolkuu arrintii ku daray kolkii aqbalkii ku dhacay kolkay aqalkii tageen kolkay sayid cali arkeen yidhaahdeen maxamed aawey kolkuu yidhi maanan arag kolkay raadkii eriyeen abakor iyo nebigayagu kolkay godka aamineen abeesadii guurtaye abakor lugta raamsatee ilmada kulada ka timid inuu aakuru yidhaah adkaysiga uu ka biday ogaaday rasuulkayagu abeesadii tuurayo abakor gacantii mashee ilaahu caafi yidhi ibliiskii yidhi markaa ogaada inaanu dhiman inaada shahaadatiin maxaad ku ilowsantihiin inaydun is-aamintaan maxaad ku ilowsantihiin islaamnimadiiyo sharciga maxaad ku ilowsantihiin ilaahay in laga cabsado maxaad ku ilowsantihiin wuxuu yidhi ilaahay addoonkayga kii dila adduunkooda kii dhaca ka dheeraa agtaydii wuxuu yidhi ilaahay 4 boqolkaan anigu dhigay aayadaha tirada guud 4 jeel xillaba rogay ka akhriyan ku camal falin imtixaanka wuu dhacay wuxuu yidhi ilaahay ruuxa daa'ifka u dayn
udgoonow rasuulkaan ka tageen adduunyada wuxuu yidhi ilaahay awlaaddii xalaal iyo sunnaha mu'akidka u dhaca anigaa ka raalliya wuxuu yidhi ilaahay ina aadin tala xume qalbigiinan ooda ah ingeginayn qodayn baa idin sii jidh aakhiro ma idaa sulsilad baad arkaysaan maqlaysaan oon idin akhriyaya rabbigiin nimaan ahay awxaar ahaa idhi in yar iyo in badan baa ma ilaaba qoraya yani waxaan arkayaa hiiraash oo gacanta taagay waktigay naga dhammaaday aad baad umahadsantihiin caarsha u nahay aniga caara u nahay odayaasha awlaadayadii iyo caruurtayada wadatiin waxaan u hambalyeynaynaa telefisyoonka iyo iska aragga muuqaalka iyo hadalkaba laga maqlo mar baan hees ku idhi maaragtay heeskaa kuma dheeraanayeeskan afrikadan had iyo goor ka hadli jiray madaxweyneyadii markii dabadeed ay nimankii mutacalimiinta xoreeyeen kabla ayaa annaga waxaan ahaa dhalinyartii in badan afrika afkeeda ay ugu deeqdo ugu deeqay yan smith iyo africa iyo hurido iyo maxaa siran la qaybsaday dhalinyarta africa ay ma dhibana ay oran jireen marka waa dhaweytaan maraykan tegey marka waxaan arkay waxyaalaha laysu samaystay waxaan iska aragga maqalkiiyo idaacadahan hadalka ah waxaa loo abaabulay africa la leeyahay itixaan ma gudubtidi kaa xidhan albaabkuye akhriskii dib ugu noqo awlaadeedaa lagu yidhi qof madow aqliba male yaan ku dheeraa waktiguu dhammaadaan male qof madow aqliba male qaaradii ayaan darana afarteeda baalood olol baa ka kacaye qorbaaba aniga ii dheer anu oday qureetiyo uur hooyo wada galay afkayguna waryaa yahay diintayduna islaam tahay aqalkiiya tusmada iyo ardaaguna dhex noo yahay waxaa la isu idhan jaray maan garanin aniguye waxaan islahaa anigu kolkay afartaa jihiyo adduunka u kala qaxeen hambadu uxun bay ogaan waxaan islahaa anigu qabiilkay aamineen dhibkiisa kolkay arkeen ilmada dhabankooda qoyno uurkooda saafi noqon waxaan islahaa anigu islaamnimadooda iyo allow toobay u noqon waxaan islahaa anigu uurkay wada jiibsadeen aabbaha soomaaligaa abuurtooda iyo sinjiga ayaa uxun bay la hadhi waxaan islahaa anigu indheergaradkooda iyo aqoonyahankooda iyo abwaaniintooda iyo adeegaabaa u kici mar waxaan idhaahdaa aqligaa ka foorara marna waxaan idhaahdaa dhigahaa ka awdaran marna waxaan idhaahdaa alla kacabsi baan jirin marna waxaan idhaahdaa u kasbay u baabi'in baryadii ilaahay aan ku hogeeye uha soomaalida waa sidaad sheegto kolba waxbaad soranaysaa sida bisanu samaynayaan waa kuwa haddana aqli leh waa kuwan aqoon leh waa sidii waa runta kaasi waxau ahaa cabdi haybe fanaankii cabdi haybe oo maanta barnaamijkeena tixmaal marti u ahaa sida uu sanguduula taliyena waxaan jecelahay inaan dhowr jeer oo kale aan soo marti qaadno barnaamijka nagala soo qayb qaato waad mahadsantahay cabdi haybe dhammaan dadweynaha nagala soo qayb galay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gaar ahaan maxamuud cabdilaahi ciise sangub madaxweyne iyo mudanayaal intaa waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkii habeenkan caawa aan idinku talagalnay tixmaal oo marti sharafka koowaad u ahaa cabdi haybe axmed tan iyo intaan dib ugu kulmi doona barnaamijkan tixmaalna waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo nool kulanta laakiin way isleegiin haddana macnawiyan macnahana way toosoo sheegto waxaa kaloo lamid a muxuu ahaa saamidii qarrimaniyo haygu noqon diimoosh saamidii qarrimaniyo haygu noqon diimoosh shirkii labano lix cashan jaad iman lasoo ay qaadkii loo taray dhawaaqii hay ku noqon lacag waa ma fahamtay marka macnaheedu waxaan uga jeedaa saamdii qarrimaniyo hay ku noqon qarrimantii waa Soomaali saamdii qarrimaniyo hay ku noqon Faransiis dimashan waxa weeyaan waa Faransiis hay ku noqonna waxa weeyaan Soomaali waana siyaasad haddana macnaheedu bedelo waxaan uga jeedaa sabti waa sabti yuhuud salaamay axadna waxaad kristaan ya saamdi qarrimaniyo hay ku noqon diimoosh ay sheedahan dhacay oo sheedadina ma qaldamayso iyadoo carabiyana aan saalahan siiyay ya xabiibatii ana axyi kama taxyi alquruud bila ilays marka ilays taas ma Soomaali ka halka ugu dambeysay dhahda
يا حبيبتي أنا أحيي كما تحيي القرود بلا لبس وقد دار شعري بلا قصيص ويا عزتي قرة عين أنت كمثل اللوح أنت كمدم غيث منك حبي وإني أرسلك مليون أوراق وأكثر مرتي مليان معنى مليان ولكنك عامل من أي جواب وقال للمستشفى مالي دواء إلا عديق مويه إلا عديق والحاجة تشربك هو الشاه من البقيس سيدا تقول قيس ولا سيدا تقول قيس مرات يا حبيبي أنا أحيي كما تحيي القرود بلا إليك كم دررررررن درررررن دررررن وقد على شعري بلا قصيص كم دررررررن درررررن درررررن ساسا نقول هذا لكن على اسم بدلي حياتي عنه محاج عائلكيغي وان نولهاي سيد عيرهدو بلا إليس كمولي أيضا نولهاي أنا وان كرامي استقلوا وقد على شعري بلا قصيص تماهي بنا قصيص لأن أوجد بيسك بحيرون بيسك داير هذا ما كان معني اسمه بدلي وهالكي معني وفتي بس معني أنا وصول لكن هذا سيدي كلام دحين تيام بهانا وصح لكن فلا سقط سيني أدواتك لما كيسي مركز براتنا وحين معاك عليه تذكر العمر معلومة مثلي سيني واحد تصوحها هيك وقف سوماليين afafka kale kuma jiraan ha laakiin Soomaaliga si kale loo dhigay qosol laga dhigay oo la murtiyeen eg murti iyo qosol bikada Soomaaliga marka isagoo qosol weyn hadda laakiin teembadii murtida leh oo isqogu amariyo awood ma gale isqoriyo amaswaariya isqogu amariyo awood ma gale isqoriyo amaswaariya قفول له قفول جاوي له كابدي يكين ده تنك حشيش له هذا تاني لقوا إنك حشيش كان نقطة كل واحد سقط تمهان هستي جرتي تي جودي لوربله وعلم دي أنت تدار بركة نقول أنا يلا لفانته نكاغن عباي سنعتيو عذرك في دينا ياهو ونكاغن عباي سنعتيو عذرك في دينا ياهو تبشر له تبشر له كاتا إيا ديف له تولي دواق له الله شاعل كاميو إياغا الله ولا شاعل كاميو إياغا ninkii magaclahaa mamuus kordhiye marankan maxay ku falaysa war ninkii magaclahaa mamuus kordhiye marankan maxay ku faraysa calal ma dhawdhe awjad iyo loox dheh cunsur lafteed allah jacaylka amiyo yaq allah nooy jacaylka gabadh ma u tartamaysa isna ciyaal suuq dhacaas iyo tugdhe badow macruuf dheh allah jacaylka amiyo qamuus ka garanaya Allah ka garanaya male marka kaasi waa Soomaaligeeni oo isagoo hadana qosol ah aan murtina ka maqnayn laakiin hadana waa qosol waa qosol qosolku waxa weyn wasadan soo ismarsmala waa murtida ismarskeeyo roodidii murtida noqonaysa waxa yar dhexda laga maray macaanini waa tan macaanis marka tan lagu daro dadka roodid murtida tan lagu daro te waa bas ismarskeeyo leeyahay roodidii ku dhamaysan matashay adiga iyo ninkii kale fanaanka ahaa bonxis maxaa ka mid ahaa qosolkeedii tanoo kale ku jirta waan arkay bartaan istaagay ka baxsanaysaa shahan bigeeyey ayay ka booday baan le markaa shahan bigeeyey ka booday ma iyadan u go'a ma killigan kala jabshaa ma hablahan wada nacaa sidaas ahayd ayaa ku jirtay تأساوي قصر برنامج روايدي هيستايل ودي فربلينو تيجي بساسو تهلك مقصو توكي مرة تاجد الرأي يلو هندي كتيرو أيوة محاها أيوة كتيرتي لكن كمان نندرن هلكن كمان نندرن هذا نصب من لكن من نو شيء كسر روايدي كتير تيجي بساسو تهلك مقصو توكي جمورة وتاجد الرأي وي هدانكو عاشقي
eseedii ciishay caadilka arkaayo iga caawintoone mirigii aaway miri awaawa asaburana burana ajaahe waa hindigii ha hindi ha inta waxaan ka qosinaysa waa inta leega kale hoosta lagaga nabay ha in macnawiini ha inta kale hojinaysa caqliga haweenkuna waa sida cayaalku rag ninkii u cawdanaa way cadaadiyaani way haddaan ku caashaqay eseedii ciishay caadilka arkaayo iga caawintoone marsoo cayaar marsoo cawe caawa qura hay cidlayn caawa kaleede horta waxa ay dambeeyaan habeen damban oo albumay joogtaa waxoogaa haddaba ka nasanno cabdi haybe axmed waan ku salaami doonaa marsharafka koobaad ee barnaamijka imika waxaan hadalka jecelahay in aan siiyo odayga maxamuud cabdilaahi ciise sangu horta maxamed iyo cabdi iyo hiilaashintaba iyo marti sharafta ama tixmaalka ag fadhiya kolley wax kastaba waxay ku fiican yihiin haddii ardadaadu ay kacdo oy wixiiba qabtaan hawshii anigu waxaaban ku fiicnaan lahaa inaan qoslo oo ardadaydan ku qoslo matalan waxa cajiib hadda dhabbe wado helin waa ninkii nala fadhiya waxyaalaha cilmiga ehli gaadhay maaragtay awal weyn istiri jiray waan ka xanaaqi jirin maanu helin igu leeyahay bug ba soomaalidu say wel baxayso waxaa arkaysa hadda mid baa la odhan jiray baabuurka mahooyadaadaani waa su-aal wuxuu odhanaya wuu leeyahay maraho feer buu ku kicin jiray hadda dhabbe helin wado ya waa iska wax caadiya wey bini aadmiga dee fal lama noqon karo haddaan wax dadka lagaga duwanayn haddaad un dee qurxis iyo bildaan arag sami iyo aada la baxdo dadka waxba kama duwanay marka magacyadaas iyo markii aan arko waxaan jeclaa inaan iska farxa horta caro iga dambeeyo oo tixmaalka hadda da'da lama sheega haddaan aa iga wen yahay saako dhan baan isaasan caro bal hadda intaad iga weyntahay ka sheeg ilaahay ana gaarsiiya laakiin kolla waa wada dhalanay hadda iska jir dabada kaga daran anigu 66 baan jiraa laakiin mar baynu wada dhalanay ayuu ku laray arma adiga horeysa adigu caari aan kugu soo wareejiyo marka maadaama ay dhalinyartu qosolka inoo yihiin anna aan dhowr eray oo falaga ah aan inoo tiriyo inay dunidu gabangaabsi tahay gabaxo hoolita waktigaas quraaye inaa shiidii lagu guuray oo ay galgala tahay ayaan idin garwaaqsiinay taariikhahan gabaabsiiyey qarnigan galowgu sheegaya gudcurka iyo cadceedan isqabsaday hadalkan gaagaaban cilmi falagan guuray ee dayaxa guudka laga saaray gordane iyo suudadan kala durkee godobta sheegaya guntane iyo bayaadkan isdhacay ee geela kala qaaday kartan waafyuubkii lahaa geli aqoon waaye ximrahan gudunta soofaystay ee gamaska dhigaystay lamaanahan guxleeye u tegey dirirka gawriire gaaraanahan ordaaya ee derderay guubiska hurdaaya minguryahan dhuntay ee wakhtigooda garaacayo garbaraarka ciilka u go-ay ee gudubka dayeestay ee kiiskaa gabaday ee habeenka u galeen litaa cuqlaa gebiga yuurura ee ilmadu dhabanka ay gaadhay dariiqaa gedmaday ee tirada geesu bixin waayey gugulahan dhawaaqay ee codkiisii la garan waayey geeldoojiyaasha iyo siradan diday godadkooda sirtan u galkeedin lumay ee gacantu ay hayso geedigan ujeedada leh ee raadka loo gadayo ka gaadhsiida iyo weerarka iyo guura bahallayntan gantaalaha ninkii ridi lahaa amarka loo geeyey uladan goor walbaba wada shirteen fulin go-aankeedu dowladahan gobta ah een haddana fito weri gaadhi intaan baan uga jeeda waayo qof leeyahay waxaa laleeyahay xor baa tahay mana hadli kartid laba erayoo kala fog markii aan ku wareejiyo waxaan uga dambaynhadda waan kusoo noqonaynaa raadsanid waxaan kusoo noqonaynaa cabdi haybe cabdi haybe riwaayad aada matashod kuwii ugu horreeyey waxaa ka mid ah riwaayaddii aad tiri dayri
geedo geeda ma saartee gubaad oo xabeeya waa 79 ahayd ay waxa weyn waa rawaadaan ku bartay nin la oran jiray sangu baa garanaya dee la isaga macalabeteeda awil gar jaamac la oran jiray marka Allah naxariistay steestiiskiiba hargeysa ku waxaan ku geeriyooday abwaan buu ahaa jilaano uu ahaa waa ninkii matali jiray kurka booseeya miyaad kululaatay ka warkay soo saarso ma oran jirin muxuu ahaa ninkii loonta saray Axmed Aziz saray waa ninkii uu la matali jiray oo ku oran jiray kurka booseeya miyaad kululaatay ka warkay soo saar ninkii ku oran jiray awil gar jaamac marka ninkaas rawaad lahaa awil waxa la oran jiray deergeeda masarta gubad oo xabiyeeya dad badan bay ugu jiray Allah naxariisan inta ugu jiray sideed ka dhigtay xuur la oran jiray waxa ku jiray maxamed faarax la leesna hargeysa joogo waxa garanaya waa sangu ba garanayay waxa ku jiray Sahra Cali Xasan ee ku jirtay marka actor labaad baan lagu ha Sahra Xasan way matay jirnay waxa kamid ahaa aan ka xusuustaa imika hees kamid ahayd oo hal hees baan ka xusuustaa iyo hal geeraar baan mulanaya waxa ku saabsan xaaladii waqtiga lagu jiray may waxa kale ku saabsan wax iska caadi oo dhamaan jacayl caadi ah iyo cabashooyin wax noocaas oo magaalada dawal kala caawinayo marka waxa kamid ah hees hal hees oo dheera oo la oran jiray todobta ay tusroobiyo raxmadii allo timi dhulka taakiyo taantaan la loo tegay oo tigaato hawrto taabtahay calantii sida loogu taransado xooluhu tayeystaa tafku caana lay noqo iyo taran baryo aqale taban taabi reerko tafaha u xaydo hoy yan laga tegin iska tiiri qayrka ayaa kamid ahay oo ka xusuustay yararkii mid ka xusuustaa waxa kamid ahna waxaan haystay hodheel marka roodka matris hodheel baasta hodheel baan waxaan tabax kulkaas dad iimay masala maxaa haysa loo oranaya marka tan waxaan hayaa beer iyo beed barigii lagu shiilay iyo baytaa oo karmiici badow aan aad u aqoon badow aan aad u aqoon dadku ka baqtiyo isba gaadhay bakeeri salaadii ku butaasho isla bushiyo waxoodo yarbo dhanaa ayaan haya waxaan hayaa bursaliil la balaarsho inaan barqadaan baheerkay barwaaqada sankan ayaa mid ku balashaa ay garaka san ka sii hayeen inta way horeysay oo way fogaatay ruwaayadaha kala duwan waxa kamid ah duruuf xeerka ka weyn horta tan kan sameeyay duruufta xeerka weyn waa mid cusub iyo waxa ku saabsan tahay badana horta waa falsafad laakiin fanka ku saabsan duruufta ka weyn baa xeerka uu jabaya hadii duruuf timaado xeer kasta jira oo burburaya duruuf hadii timaado xeer kasta uu burburaya oo burburaya duruuftana jabinaysa hadii uu burburinaco hadii uu soo muu jabin xeer kasta ma jabin magawaadid marka tagaysa iyo maxaa loo jiray hadii fool timaado guda qarsiin hadda laga leeyahay marka hadii duruuf timaado xeer uu jabay xeer wax kasta laga looniyo xas waa xeer tawu jabaya duruufta wata duruuftu ma ku hogaaminaysa marka waxa tidaahdeen waxay leedahay ilaa 12 magac bay leedahay maxaa kamid ah fanka ku saabsan beerta rawaado oo ku hor qabsaday laakiin waxyaalo fara badan ba ku jiro dee falsafada waxa kamid ah fankan beelaha gaadhay burburku la socday ha fanku waa isagii foolxumaan ugu fankeenu gudbu ahaa gumriya doornsiiyay fanki fatalada cataa fulaha waqtiga ka dhigay fanku maaha sidaas maad su-aashi dadkiisa kudhe fanku maaha sidaas maad su-aashi dadkiisa fanku maaha xantoobsi iyo xabaal goosara taala ayayna ku jirtaa koosarada xabaasha talo waa ninkii soo gaaray fankan xorun ama xabaalo ayayna ku jirtaa waxaa kamid ah fanku oodaha jeediyey hama beeleendha
mid walba wax weeyaan waxay soconaysaa 20 daqiiqo magacaas 20 daqiiqo soconaya marka isku 3 saacadood lama rawaado magacaas kaliya horta rawaada dee isma gudigeli karo waa dheer macnaheedu nin baa cid walba u tagaya ya oo nin walba wax weydiinaya nin walba wax weydiinaya cid walba wada maraya ninka inta la sheekeysanayo ayuu magacaas yahay oo ninkaasaa magacaasa ninka halkaa taagan ninka uu tagay ayaa magacay walaalayihiin oo magacaasita halkaas magacaas ku dhamaado uu ka dhaqaaqay soo yaaban oo madaxa haysta ay ka dhaqaaqo hadana culimka wax galo wixii magaca ka soo gooday geeraaradeed waxba ka haysana heesaheedii dhowr heesood ba ku jiro tusaale yaroon mid waxa weeyaan tusmada aad leedahay dhulkaaga lagu tarmaa tusmada aad leedahay dhulkaaga lagu tarmaa adoo tii awoowe iyo taariikhdaada iyo xusuus ku tilmaamaya horena loo talaabsadaa waxay sheekadu ku timi ugu tuhun laguma lumo tab baa lagu xoogsadaa talaa ummad lagu dhaqaa tawfiiq baa lagu hodmaa ninkii taa diidaya tareenka holaan socday taylan u haweenayo ilaa talaago waxay sheekadu ku timi qurumaha ku tashay talaabada dheer ku yiin waxay kugu taagaleen si aan taadma u fulin diinteena u taabagelnaya lagu taamaya tacliintu faasuq wado tawxiidka ilaahay iyo qalbiga tukada ka weyn waxaan taa uga socda tagtada sheekada ka reeb tagtada sheekada ka reeb timaadana ay ku dagin ta joogtana hoos u dhigo saddexda ha yaan uga socdayba maxaa taasi way ku jirtaa waxa kale ku jirta midaan dheer garad oo dheer garad waxa la yiraahdo ka sheekeynayso qofku in dheer ha gartee in dheero maxay u gartay su'aal is weydiin karto ya way ku imanayaan oo hebel waan dheer garad hal hal limi qoon ama way oo ya khatar way waan dheer damo inta waayaan garto dad raan garto way ku diideen waa in la garto qofka inta dheer u gartay wuxuu yahay aqoonta ay waxay isugu jirtaa xumaanaya sabaan aqoontu waa laba liid waa mid xun iyo mid san waayo wax sidii loo dibin lahaa waa aqoon oo deeyaba aqoonte wax sidii la isaga difaaci lahaa waa aqoon wax sidii loo deyn lahaana waa aqoon wax sidii loo wanaajin lahaa waa aqoon wax sidii loo xumeyn lahaa waa aqoon waa ninkan tuun darbad ku yahay deeyaa mana garanaya anigu deegaho maxaa geeraarka ka mid ah marka indheergaradka markaas maxaa saddex baan kala qaaday indheergarad utingarad indheergarad aqoon garad iyo indheergarad akhri garad saddexdaa qaybood buu qaybsamaa indheergaradka marka indheergarad waxaan muhiimkii markaa qaatay indheergarad akhri garad indheergarad maxaa utingarad waa indheergarad xumaan garad aqoonta oo inta xun laga qaatay bal aqoonta oo liidka xun laga qaatay waa lagu baabiyo dee wasa wax la iska difaaca si hebel loo khiyaamay sida waxdaas weeyaan moogta si hebel loo xidhay indheergarad uu yahay laakiin wasa hebel loo xanibay sida ya loo khiyaamay marka intii wuxuu ka qaato intii waa indheergarad khatara kana intii wanaagsan uu ka qaato waa indheergarad aakhira garad waa laba dal leh waa dalka adduunka iyo dalka aakhira waa laba dal leh maxaa soo dhaxeeya indheergarad aqoon garad oo isugu jira xumaantii iyo samaantiiba waa aqoonta lafteedii aqoontana waxa uu doonato ma ku siinaysa hal xumaan doonatana ku siin haddaad wanaag doonatana ku siin marka ninkaas u dhaxeeya marka aqoonta kulba kay u heliso ay guulaysaday hor haye marka indheergarad aakhira garad ayaa kabtakii kooxda noqday haye oo manada isku fuqsaday leedela wala badal leh aakhirna kaga badmiyay marka hees ka ku saarsan marka jira soo dile shakada ila soo gelisay moogta indheer arag gabadha maan aakhira garad baa ugu mudan anfacadii aad cuntana midii aan eed lahayn af iyo muruq wada jira adduun lagu garab galaa ujeedo hagaagsan baa ammaan lagu haybsadaa ammaan hawa baryin ujeedo hagaagsan keento ujeedo hagaagsan baa ammaan lagu haybsada qof xuma ooda u jira hadhow u eersadaa ogow hadalkaba dhammaan asluub ku dar baa ugu mudan asluub ku dar ugu mudan ereygii aad dhahdaan midaan aafooyin kicin iskuul edeb iyo tacliin aayaha ubadka dhistaa cid kale waxba uma tarto iskuulka iyo edebta iyo tacliintu saddexdaasi waxay u tartaan carruurta markay yararta ha
laakiin dadka wala waxba ma tarto dalma idin kara qofka haduu weynaad la bar kara waa saxiis la aan boole noqotay markuu weynaadna dee lama bar kara wax weyday yaradkaanas arrinta weynaad iskuul edeb iyo tacliin aayaha ubadka dhista arrimo laga fiirsadaa run bay edeg u jira isma qaliyo urursanaan arra lagu horumarshaa awood ri eri xun baa ummadii dulka kaga hadha ilaahay baa awood leh xaq iyo miisaan ugu xaq iyo miisaan taasina waa mid maxaa kale waxa lagu soo noqonaa ha soo waxa kale jira qaar nabada ku jira haye qaar nabada way ku jiraan ilaa waa 12 magac meesha iyo magac qaar nabada ku jira mid meel ka soo haysta ku jirta oo laakiin ma dhaadheera mid walba waxa moodaa in wax yar oo masuuriid qaar nabada ku jira oo kamid yihiin muxuu ahaa hees la yiraahdo muxuu ahaa مخلوق نبات لي معانا ايه مخلوق نبات لي معانا ايه مسكين فقر يا مليونير كون مولها لبده او سمان من اله اللي جمع خيغورتا مسكين فقر يا مليونير كوبا مولها لبده او سمان محب كي كولا جعلا مس دheer lama sii hor dhigo milgiye sharaf ruux ka mudna cunaha la iskaga maro dad marashii hoog min maleego meel kaama jiro adiga la faantaado dad marashii hoog min maleego meel kaama jiro munaafiqi ummadan dhiba maxsharka la hor dhiga maciin aan kala maarmi karin malcuun isku dara mar rabo macaana ay macaana makhluuq nabad helay macaana markaas ay leeyihiin in kastoo macaanta maskaxda karata ka mudan dadkii way jawaabay waxay leeyahay labadii macaanta maskaxda karata ka mudan ma haysa iyadoo iiga nasiib wax bartaa ma hayade markaas oo ma hayo uu iska dhaqaaqayo kaniki waa ninkii uu dhaqaaqayo de ma hayo hadaba tii hadana teen iska dhaqaaqay iska xadina si ma haysa si garis waa runtaa bay ilaahay hadayna garan weyda ya ka darana in maanta wala wada taas kamida ta kalena waxa dawlad qiimo badan oo qurux iyo wanaag loo qalbiga iyo bariguba qaada dhigaano qurumahan lagu daro in qarna hatan qalbiga ka jeceshiin hay'ad qisada talqiyaabka aadmiga qorshihii wax qabadkana qaabkay ku noqon leeyahay wax qaniisan baa jira qurun meel ku jira oo dadku soo qotaa jira qabiil iyo wax baa jira qayraada sheekada markii la isku qoodhimo qof nacab hal wiili moobsada ka qaato ku fiicaya jira wiil qiimo badan oo qabanaya hawlaha midaan qiimo wanaag u qalindaariya jira isagoo wax qabanay mid qasaare geysto qiil doona baa jira qab dhaafa baa jira midaan qoorin baa jira qof furaha diido laqas baa jira waxaan usoo noqon doonaa daba cabdi haybe marka maasooyinkii wuu noo geli doonaa marka sacaaraan doona in hadalka sii waxa weeye horta gabayga barnaamijka taxmaal ee gabayaasha horta way wanaagsan yihiin ragiina maaragtay cilmiga ururinayina rag maskaxdii baahsanaan lahayd soo ubshada ila tahay waad mahadsantihiin inagiyo dadweynuhuba anigu waan dee inila socday waan inila fadhihi jiray laakiin gabaygani anigu aan hayo dee wuxuu ahaa gabay anu aan qarinayo dee cishaan weydiiyey siiraash waa horta gabayaaga wuu maaragtay wuu fiican yahay gabaygu gabayga la yidhaaho siire awliyo ama gabi suufi meesha hadduu galo bal ka waran waa dhaqankeenu maadaa tiriye aare anaa ku weydiiye hay maadaa tiriye gabayga gabayga anaa tiri gabayga anaa tiri haye waxa uu yidhi waa dhaqankeena kolkaa ninkii aad baan u eegoo waridan awliyada lagooga tegin ba in weli aan ka jeesan baa jirtaan taagana gabayga anagu ururintooda la soo jeednaa haye gabayga waxaan tiriyey sanadka aan tiriyey taariikhda sidaad ku garaysid cabdirashiid waagii haddii aan laga hela la diyey bay ahayd sagaaliyo lixdankii ha kolkaa anigu xagga nayriska maaragtay haddii aan laga helo ayaan ku aqaanaa nayriska isniin buu ahaa waagaa waan guursaday aqalkaygu aroos buu ahaa waxaan haystay raadiyo sidaan yani noogu sheegayo ku garanayo in la dilay soomaali ma tegin ama ma joogin kolkaa sidii warku igu soo galay raadiyo oo hor yaallay uun baan maqlay cabdirashiid baa la dilay halka danawyada soomaalidaan dhegaysanay kolkaa sidaa baan imanka cabdirashiid waagii la dilay ama igu sheegayaan waaga gabiye laakiin in baaba ka horeysaya kolkaaba kolkaa ninkeer imanka kolkuu sheekaynayey waxa dee jira wax ilaahayna og yahay oo dee dadku haddaanagu ogeyn gabaygaa waan qarinayay kolkaan sheegaya een gabyayo milaan cidlo jooga ahay isniin waan qarinayay salaasana waan ku hadlay
salaaso waa meliga xaylo salaaso la qaban doono waxaan uga hadlay wixii aan kolkaan wax arkayno kolkaan hurdo yahay waxaan ka xishoon jiray dadka soo jeedaaba ru sheegaya waan hurday haddaad tiradoo wabilo waxa jin baa u sheekeeye mabiduu leeyahay bilo dadka karabta bubla la yidhaahdo haydaada laga caanaha wuxuu yaalla reerku malkaajabta soo dacalkeeda meesha la yidhaaho gol adag iyaa naallayoo buuruhuna way soo gaabteen tigaada caanuhu waxay ahayn geela 6 liiro daasadii kuwa lodana nus shilin sokorta 14 liiro subaga kiilooda saafigii 2 qarshi boqolka kiilooda haruura muqrihi 18 shilin jaadka gaagaabka ee maaragtay 4 liiro barwaaqo dhulku waxa jira yuur saafiya waxa jira caano saafiya waxa jira gacal saafiya hadal saafiya jiro dadku waa nimca ilaahay dadka nimcadaa jooga waxaan arkay haddaan ugu sheegay ma aqbalay waxaan maqlay inuu ogaas xasan baa yidhi allah janneeye 6 marmeel dhiga haddii aa laga helo xaafad ciise dhiga caano dhowrta ka buuxaya kolkaabaan idhi waaryaahay warada boqorku marba waxaan arkayso inuu arkayna u tagtaayo ee aabba waxaabaan arkay ani oo kolkaan hurdo arka ama tidhaha kolkaabaan haddana maqlay bise waa hore sheekh muuse uu sheegay oo sheekh muuse xer diro ogaaska u tagay yidhi iyo kolka u tagtay anina awliyaanahay nimanka awliyada ku qaybsan u tagay yidhi kolkaa ragga uu sheegaya cawad iyo haddii alla sheekh maxamed jaamac iyo sheekh axmed giriya bay ahayd waa raggii u tagayaa yidhi nin noole iyaan idhoo waan ka gabaday dhowrtadii waa la shubay oo dumarkii haddii caana diqday baa shuba caanaha layidhaa islaan qadaado ku shubta tu daasad ku shubta tu in yaroo masa ku shubta awli allaa loo bixiyo 2 marmiil baa la buuxinayay dharaartii waliba masaakiintu gaashaamo yisro guday iyo jigjiga xabashada gadaan baday iyo goobahaan dhigay geesigeena oo sharaf jabhadeena oo guul ummadana guyaal badan taariikhda u geliyo ma gaboobi doontee goobtaan ku noolahay hadduu ruusku soo galo ama kuuba soo guro geyigeygan sharafta inaan gaar xun uga tago waa gadaanan weli arag guurtii aanan weli maqal ma gabado dadkaygow waa geeri iyo nolol goobtii maanta joogtaa gobonimada ayaana loo qaadan sida marageed ka soo baxay dhiigga geesiga gunta lagaga waraabsha adigu ereyo noocaas waayo muddo badan baa ka dambeysay 20 sano marka intaasan ka xasuusanahay waa heese ku jiray oo muxuu ahaa ruwaada waxa la jiray inta lagu gafayo guurku haydarnaado tuulooyin badanna waan maran ardayna wadanahay waxaygaas oo dhan wada arday baan noo standard baan oo fasalkan marka ka baxay iskuulkan dugsiga dhaxan ka baxay hayba daba xanuunayna adigoo imka waqtiga taaba gashay ee fanaanka noqotay ee dadka qosiso kulli waxa la yiraahdaa fanaanku waa nin fara badan wax fara badan baa soo mara kulanadiisa fara badan waxaad ka warantaa sheekooyinka kugu cajab badnaa soo mara sheekooyinka cajab badnaa kii ugu dambeysay muxuu ahaa 8 ka markay la qaxay hargeysa markay dhibaato ka dhacday muxuu ahaa dhibaatada si fal war ku dhacay dagaalkaas ka dhacay ayaa qisa iga qabsatay muxuu ahaa ilaa meeshii dadku qaxay harta sheekh iyo ilaa dir laba dhexdooda taasay iga cajab baday waxay dadku markuu qaxay dee hortaa banaan buu socday dadku dee meel ku jeedana mu garanayn dadku reebaal buu badnaa marka midba mid iska daba socday inuu tan ku marayaa buu lahaa way badda lagu dhacayaana ilaa hore u qaxi jiray maahan Ethiopian oo talawna leeyahay loo talaabay waan soconay isaga soconay ma tagnay dhulkii dadka lagu qaabilayay maxaa xiriirihii qaxootiga adigu waxba yahay ku dawlad magaalada waan galay markaan magaaladii galay baljijiga gashay meel la yiraahdo xaadow ayaan laba dhaafinba haddii wax kasta keenta kaarta kasta hadda dhaaf mist aan sheekada ku soo gaabiyay nin muxuu ahaa gaari nin dhakhtar wato oo muxuu ahaa ka yimid bahashi herer magaalada herer la yiraahdo oo leeyri orado meesha soo kormeero dhakhtar wax baxbaariye malakani cali wax noocaas ayay jigsiga loo soo diray muxuu ahaa meesha ilaahay wax ka wada dameero wada dhala ninkii darawalkiisa oo ku qaybiyay guri midaan isku yar dhownahay uu leeyahay
oo ku hagaagay markuu adreeskiisa aan haystay ayuun baan gurigiisa ugu tagnay ama markaas ayuu waayo faxoosha lagu sheekaysanaya oo dhagoolaan wax la sheekaystaba kii aan wax soo hayn baan ku wada warar maxaa ahayn waxay u socotay wiil markaasaan ku yidhi dir dhabe halkeed mari buu yidhi waad waalantay dir dhabe lama tagay deeri meel la maraayo ma jirtay yaan lagu dilina meesha lagu dilayo waayo anoo yaaban ayuun waxba ugu sheegay suuban dir dhabe ku socdaa caankaas markaasuu war u sheegay yaan lagu dilin ninka meesha wadada halis weeye lama dhaafo xaadu ma la dhaafin markaasuu garada ninkii dhakhtarka ahaa caankaasuu yidhi markaasaan ninkuma dhakhtar baa haa gaarigiisa waa ka deen hortaagan buu gaarigan isagaa watay ambalaaska ahaa waxaa ku kayimi markaasuu yidhi wuxuu markaas harir buu ka yimi waara daba adigu ii turjumin baan ku leh markaan cabaar iska raamusnaa adigu ninkii noo kala turjum waxaad ku tidhaahdaa war nin xanuunsanaya iga dhiga oo liita oo idinku qaadaysaan anna wixii dee doontana weydiiye waxaa wax doonna waan bixinaya nin xanuunsanaya iga dhiga wasan kaaga dhignaa dee nin liito kuwa cararaysaan dhakhtarka heran iga dhiga nin xanuunsan soo qaadeen la soo diray ama ha noqdo ama mid ku qaadeen oo serious case deedku dhakhtar baa ogaateen kolkaas arrinkii markuu ka yaabay ee dhakhtarkii weynaa la tagay bal dhakhtarka ka soo sanaya dhakhtarkii uu ku yiri dal aynkaas wax doontaan qaatay uu yiri dhakhtarkii waa nin imtixaan ninkaasi sidoo doonayaan loo qaado wuxuu yiri aniga chief sarratan dhexe oo dee ninka serious ka dhiga waxa kale deegaanka jijiga adiga beerley waa bogtay nin beerley oo kana aqoonta ama daliita oo dee waraqa mara kuwaas lagu cararayo arrintiisina ay ka weynaatay dhakhtarkan jigjiga warooban caqli fiican buu yiri bal u yeelo hadduu kari karayo soo saar buu sida lagu saaray sida la soo hadna waad matashay xanuunkii waad matashay waa maxay matali waay afar hablood oo way saareen nas halaha iga mare irbuhu la soo baxeen wuxuu wada diyaargasan waxay تبغى يبان هو هذا ما تقنا أفرت هوشة القلوب يبون ولا بفرق ولا قادوا نلا بحد يقول الله صباحي ولا قادوا ولا جواب بقلي الغالي ولا غالي على الحمام كيف على مشرب ولا قادوا لكي إن لو حد يقول نلا بحد الله صباحه مركز سوى مركز واه حال سده فوش مركز كل هذا أنا مكرر معي markaas uu waa wadani seriiskiisan kula ordinaa oo maxaa aad u dhibaataysan dhakhtarkan heran dhakhtarka heran ba kula ordisa ha uu soo wareegay ma rumaysanaya waxan daaqadii bahashi dambe fura albaabkii dambe uu soo fuul markaas ay u daraadarta markuu la xadiglo soo fuul waa ka xanuunsanaya ayaan isla waa tabis hadda ku dhamaatay ku tawanay uu soo fuulay marka aniga mariyo yaro jaqinaa oo ka bedeshay dadkii baan ayaan barkaday dadka shaar xun baa mid ka bedeshay baan sitaa wax waa jaxan baan sitaa kala dacso kala kaana madaxa halkan madaxa la barkiyo aniga barkiya ku cad baa la saaray habu harraha iga fadhiyaan waxaan jirin bay beef taa wada hayaan oo shaqeeyaan si uu ninkan gurmud hawlo gurmud ayaa meesha ka socda inta markaas marada sayga qaada markaas qalad horta loo xnuqo ساسو يقال أنا اللي ما إسكهيا سويق علي عبار صار أنت كسرت تجيب عبار يفكر في الصعوبة عشان يفكر لك هذا بحث ما يموت أنا وأنت والله أنا سوي ميتك والله صعبة واحدة تجي ماشي بابول لي لحظة وكنت تجين عير بس كقولت تجين والساعة دي في مغناي أنا مرة دي سارن وميت كذا نساعد كله ويصير نقطة أنا مركح حواشيت أركان أنا قوتي أنا قوين سديع أي قصر كعين أنا فهمي موزي وحي اللي سلحائي إن الفصحي إن هات بدر الأمان قال لهم في أمان كان قال لي فهمي موزي وأكو قصر حيوانه وارم بين ولي كان ولد ذني ليك مرة ولد تو مرة مرة كرع هذا مو مركو لو واحد يقول صوف ولا كرع ولا كع وكعيه وأنا هو اللي في سوداء أي لو مرة يسارني أيو نكي إنجليزي ولا هذا مرة قاعد إنجليزي فهمي نكي مع الأختر كعب كل كاسوي واحد كوقص محي كوقص ليان ما كول محي كوقص ليان بس واحد كوقص ليان نيجا مرة يسكت قاعد وهي أريد ولا ما أنت أنا ما أفكرنا يا بنقول مرة
taasay igu cajaayib badnaydoo ninkaygaa meydka ku maray soomaaloo dhan bay soo wada martaan wey dhibaatada taasay horta igu daray maanta sanada cabdi haybe horta asalkeedaba waxaan aragnaa adu waxaad adeegsataa afaf badan markaad dadka quslinayso waxa aad ku hadlaysay dadka ka qusisa maadaa badanaa samaysta mise dadkaa ku samey lagu samayn kara horta oo waxba kuma jabna lagu samayn karaa fanaaniinta waa iska shuraako kana ereygu kana waa marka dee laalkin wada la fadhiyo waxaana qofkaas soo sameeyo laakiin tani way ka duwanta waa karakter gaara ama waa wado gaara qof u gaara marka isagoo tacliin badan ka bixiya oo cid u sharaxa oo kan bara oo ka kale bara oo ka kale qaabkii loo sameeyay mooyaan intoo la xuurteeyey dabadna la isu wada keenay waxa la isu geliyey laakiin la isleegaysiiyey macnuhu aan isbedeli karin marka tusaale aan ka soo qaadano often way isku walweys often waa erey ingiriisi often way isku walweys ifirday bay la socotaa otherwise ninkaan garan way ku yara adkaataa iyana ocean kula gelin oo kale yeah if I could not see it was ifirday actually amba waan ilmeeya marka erey kasta waxa ku loodan ilaa Soomaaliya un baa la siiya waxaan tagay magaalada Dirdhabo sheekh aadan raamaale xaajigii sheekh hadda Dirdhabo fadhii jiray oo xirtiisii oo xirx awlan wadad masaakiin waalwaalano eego sida u fadhido oo mid waliba kiilo fooxa dabka ku guray ilaahay nabadgelyo lilmo intiis oo ciisihii ila diljeeyay war waxa waalwaal maxaa xilay uu leeyahay uu baa diljoogsaday wallahi tani waa wax jira uu baan yiri hadii tooli waa wax lagu ogyahay awliyaada habeenkii kolkaan seexday uu baa la akhriyay gabay badan waxaan dee kuu sheegayaa gabaygaa wuxuu yahay guddi awliyaa joogi iyo gaar hayo oo idila nimankii garoomada lahay guuxa waayadani samadaana guux baa jiray cidiba gaadhay meel walba goloniskii ka dhacay odagii loo geeyey gudtaa laga bilaabo haqi idhanka soo gaadhi gorofkii hadduu buuxsamoo loo garwaxsadee gallad mahad hadday saadadii goyse xaajadii aqisnaya qawsoo madad yaa jilaani samadiiyo waxaan eegayaa sawdan baaqanin wuxuu eebba ii soo sidoo sugaya weeyaane siligaay kolkuu ila hadlaan saari geeyaan sawdkaan idhaahayna waa siire awliye gallin buu malooligu sardanee saaka waxa jooga haddee seefta loo qaadayo waa la kala saydhin subalku ilaahay dhashoo saafia u kici aqisnaya qawsoo madad yaa jilaani kolkaa wuxuu yidhi waxaan sheega waa la arkiyo meehi shaydaan shuqul awliyu aabbahay shuunka ka ahaay sharciyada la dhaawacay hadday shaaca ka caddaan shuqulkii asxaabtii iyo haddaan sharaftii loo laamin awliyada sharaf badan haddii loo shadixi waayo adduunkan isku shaamaan haddaan la kala shaandhayn nin waliba haddaan shoog la odhi shaygu ka abuurmay nin xariir ku shaamahan hadduu shiis odhan waayo shayaadiinahoo idin haddaan laysku wada shiilin sheekhaan ku dhaartay hadday shaaca ka caddaan waxba hadalka lama shaamiyo sheekha ma u dhiibay buu yidhi aqisnaya qawso wuxuu yidhi haddii sharciyada la dhaawaci hadday shaaca ka caddaan soomahay gabay wuxuu yidhi ay shaca ninkii joogay iyo odayadii oo dhan hadha gaalo awliye taal odagii weynaadhe mille iyo burcada waaruf boqoradii yaal kuwii hibada loo dhiibay harawo oo laayo awliyadii herergey iyo odagii weynaadhe england iyo oroobi ha jira ummadii soomaali arrimihii kolkay iskugu tageen laysaf garan waadhe nin indhala nin iibaan labaa uuba loo qoday dheh alla la gaba dhuntay dad baa la eryanayaa bui aqisnaaya qaws haddaba hoosoo noqonayna masharafka koowaad ee barnaamijka mahadsanid car cabdi haybe maasooyin inaad tirisaa maasooyin dee kulley muxuu ahaa كل ده قفكو ها kuwan gaagaaban maahan laakiin kuwan كون غاغاون معنى كون هس بلا معنى قوي بكتي gabay حاجه عليه ها انت صدق كل اللي يقرب بدين هو ده ان ابواني وين فديان هذا لكن دي اسكو دي كرا معلمينتي اسكو دي وانا قرون اسكو دي مدو شدو دونا هل هذا laakiin kulli qosol baa ereyada waxaad u tirisaa sidii متعايا سكر ما ترين كرا يا قصر كا سكر انا والله تريا والله وانا ترين كرا متعايا هرت وان تريا دي dadku inta badan maqleen oo tiri on ere sida hogolka ishii daadoo meel loo hayso ama labiga hawdo gugi u buuxeeriyay oo had ku dhaafo shimbiri inaga goor heestay
aadmiguma horay dhaqsi ugu hiloobaay ninbatuu ka helo ayuu hablaha hodan ku sheegaya ana xiisahan ku haya kabaha weyn taasi naasahaaga sida hooto waran hore u soo taagan dabnahaagan hiifka baaqon hadalsan mooyaane ilka aan hogoodii kalama kalana hooseynin dhawnada hareeraha wejiga halala nuuraya sankaagan hanaankii qorshaha hadiyad loo siiyey indhahana qasoo taago haddana caasha qabanaya sunayaasha haabkooda wacan hadal dhammayn waaye timo garabkooda suga dagoo sinaha habaabtay qoortan iyo habkii gelilaha la wax dhaafisana dhexdana hareeraha u kicin hore u soo boormin abu socodka laafiyaha gacmaha heega lagu dheehay hanaan quruxsan waa kuwa lagu ka qabeeleen waa gabay markii aan hamiy aan higad qoray waa gabay ninkii la hordhiga oo hin horsade waa gabay ninkan caashiqilin hawriyaan la ah ninkaan shaqo hawriyaan leeyahay ha ay waa gabay marka kaas waxa kaas waa mid kalena uu fara badan yahay oo deegaanka ku soo kala tusaale ka siinay hay laakiin tusaaleska tusaale xogay saree xogan ayaa xoojinaysa ay xooj wuxuu noqonayaa sida good lacag xumada geeska buu sayray ama aarka muu lagu dhuftay oo alaxda soo geejay ama gool ilmi laga xado goo hadama weeyay ama baarqab geel jiray dilo calaga miyaysan meel la isku galay oo safeen qeyladu iskaadhay gurmad gees lagu dhaawaco gumci naafiyay harka geedka ku geyn lahaa loo gol roonaaday ama habar goblan oo xanuun goob cidla taal oo cid garasatay aan lahayn gacal xanaaneey kadib jiifayga xal hordada gama leedidii waxay gubayeen oo ka kacay ugu shiitay wallahi ay kifafkii adduunyada ayaan bariyahan guriga raasi waxay maray mooyee dhirta gubatay eeraan naflaha geesiyada leeday dhirtii gubatay eeraan naflihi naflaha geesiyada leeday guutooyin baaba'ay ciraaq hadimadii gaadhay bayruud godobkii ka dhacay gaaliya islaamka galiiliyada si lagu gaayay labada geesoode gebgableynta ruushkii kabuul gorada soo saaray shax gumaysi midab kala gurkii midabku soo geertay gantaalaha ridada dhexe madfaca laysla gaadaayo gardarrooyin ka muuqday in laga garaabaynin afarta gudi aan lahaa gudama sii daayay ma gadaamay sidii guri aroos gogolig mau yeelay madaafiic garatiya xabada gumuc ma qiraashay ha horta halkaa inoo joogo wax ka muxuu ahaayeen munaasabad ahaan ayaa meelo kale uga gelaya oo fara badan laakiin waxaad ku badan soo maraya waa ku dartay leeday dadka degmadan badiyaa ma yaqaanin leeday waa ma leeday leeday waa dhintay dhintay waa dhimashada leeasho waxa wixii odaygii oo fadhiye xasan gubayl leeasho degmooyinka qaar baa dhimasho unbaa loo yaqaana waa dhimasho leeasho waxa weyn laakiin marka leeasho la yidhaahdo dad fara badan ma la sheegay dad fara badan dad leeasho maqasho ni qof maaha waa lagu leeday hadii lagu dhahdo ama leeashaba dad fara badan ayaa dhib jamac wey erigoo jamac kelimaha isagu waxaa ku daray magaca macnihiisa dadku aad bay ugu baahan yihiin qosolka maaragtay iyo kelmadahan isu imanaya ee haddana iswada leeyahay midaba meel ka soo aroortay yaa horta ku talin lahaa tala ahaan oo bini-aadmigu had iyo goor farax buu u baahan yahay farax buu u baahan yahay ha marka cabdi waxaad yar moodaa inuu ereyadiisu farax ka ay ka soo jeedaan ay ka soo jeedaan ama sida uu u tilmaamayey weli maan aragna riwaayad samaynay riwaayad 12 magac leh kuma aanan fikirin waan u hambaliyeynayaa aad baan ugu hambalyeynaya waxaan u malayn dalka soomaaliya ninka ugu rawaada badnaa baan ahay haddana cabdi ereygaa uu magacyada baynu bixiyey riwaayadda hal magac u bixi maaha 12 magac u bixi maba aana odhanin waa waxaa adduunyada يعني أنا هاد يقول كل دردان فنكنا ورفنكم معها واحد ميل سكتش وقفك وأنا صعود واترتن سيرك بدأ كل بقف وقول اللي يقولك أيا نيكي سنة كهاس في عنكو يا سأيا ونكي وتا أو كوة قفك السفي عن حمة تلا يا كوة كروات في عن في يا حد بفنكو حوية معها إلا يا سنكو هالكاسات شوكتا معها أفقل يا سميني إن رياضي يديك وقف في عن waa inuu noqdo hal abuurku waa inuu noqdo mid xora tartanna ku jiro waayo had iyo goor hadduu noqdo sangubo adun baa meeshaa jooga waxaad moodaa in markaas fikraddii bini-aadmiga in wax loo dhibayo oo la xidhay baad mooda waxaan aada ugu faraxsanahay intaasoo maanta martiqaad keliya maa waa wada hal abuuradii way jirtaa tixgelin la yidhaha qofka tixgelin la siiyo laakiin waa in hal abuurkeennu madax banaanadaan sidaan qabo oo aan loo arag hebel ba halkaa joogay sangubaa intaasoo riwaayad sameeyey sangubaa kana
ma aha maskaxdu way gaabisaa garashadu way gaabisaa indhuhu way gaabiyaan hal abuurku wuu gaabtaa yani qofku wax badan buu aan u socday kor marka hadda hoos baan u socdaa waa inay dhalinyartan iyo kaba marto oo la xoreeyo si uu qofkii u ididisho wey waxaan u hambalyeynayaa intaas oo dhalinyaro ahoo wada hal abuura haddana tixgelin martiqaad ma aha ee waad soo xusheen waa dadkii gabyayey ee heesayey ficnaa wey waxaan ana ugu hambalyeynayaa inaan idin xorayno oo uu noqdo